Asalaamu calaykum asxaabta. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay WhatsApp GB sidee loola soo degaa. Ugu horeyn haddaan ku bilaabno Play Store markaad soo furto kale aad qorto WhatsApp GB aad qorto marka aad searching dhahdo ma kuu soo qabanayo wuxuu ku leeyahay waa ujeedaa wuxuu ku soo qoray no results ku leeyahay marka iskaga baxba asaga dhanba gabi ahaantiisa oo waxaan ku hayaa waddo ka fudud. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho Google Chrome ka soo fureynaa insha Allah ila socda. Google Chrome markaad soo furto waxaa halkan ku qoraysaa WhatsApp GB markaad qortid searching aa leedahay. Markaad searching dhahdid asxaabta waxaa kuu soo baxayo WhatsApp ya kale laakiin asaga ma ahan. Aniga waddo fudud ku siinaya waxaa sameynay hadda kan oo kale haddaa ku dhufatid asaga ma noqonaa mid kale oo noqonaa. Waxaad sameynay waxaa laga yaabaa mid kale inuu noqdo. Waxaad sameysaa qaybta imageska fur. Qaybta imageska markaad furtid waa waddada ugu fudud. Kuwan kale waa iska daynaysaa midkan ugu koreeya GB WhatsApp APK download kaasa taabanay. Hadda kan waa sawir uma baahani anaga waxaan rabnaa asaga laftiisa. Asaga marka meeshan faceit ay ku qoran tahay ad dooranay markaa faceit dooratid kadib hoos soo aaday downloadka inta ayuu ku meeshan kugu soo qoraa kadib waa dooranay download. Markaad downloadka dooratid download anyway oo ku leeyahay okay ayaa leedahay. Marka okay dhahdid waa kan aan kugu socdaa oo kugu bilaabay. Asxaabta waa kana uu soo degay waa ujeedaan kaliya wuxuu kaaga baahan inaad install dhahdo. Markaad install dhahdo shaashada ayuu ku fuulayaa hadii ilaahay idmo. Asxaabta sidaad ujeedaan baa hadda shaashadu waa inoo fuulay kaliya open na dhahdo ayaa ku dhiman. Markaad open dhahdana lambarkaaga gashane haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar. Haddii aad hore nala joogtay like iyo commentiga iyo share ka naga baqiilin.